aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waxgaradka haweenka dhallinyarada mas-uuliyiinta awal arabari ee xafladda soo abaabulay ee iyagu iskood isu soo abaabulay ee nagu marti qaaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye xisbigeennu axsaabta kale muxuu kaga duwan yahay xisb laysu abtiriye maaha abtirsiibo ma leh laba idhaa reerkeed ka timi labadii xile xisbiga u sarreeyey aniga iyo xirsi xaaji xasan oo hogaamiyaha ah iyo aniga oo guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah ayaadna lagu maamusay iyadoo intaasoo beelood nooga soo horraysay lama odhan xaggee ka timaadeen yaa ahaydeen yaa u dhalateenna lama odhan waxaannu soo arkaynaa kulmiye waxaannu arkaynaa in laysu abtirinaayo oo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaa labada xisbi taasay ku kala duwan yihiin salaan waxaan idinka sidaa musharaxeennii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo hoggoomiyihi xisbiga oo shaqo xisbigu leeyahay aad isagoo ugu maqan salaan bay ikiin soo fareen salaantaana way ga guddoomaysaan waxa weeye gobolka togdheer iyo burco waa halkii ugu taageerada badnayd kulmiye waa gobolkii soo saaray waa magaaladii soo saartay warna dhafoor buu ku yaallaa siday burca tahay baa idinku filan wax abaalguda lagama hayo gobollada kalena haba sheegi maanta dalkii waa la xaraashayaa dekadii baa la xaraashay eerbooradii baa la xaraashay haamiyii baa la xaraashay burcana waa arkaysaa rodinkaa nooga warroon haddaynaan farteennaa ku beddelin kulmiye waxba dalka loogu iman maayo waa heshiis la gaadhay waxaa la og yahay inaan la soo noqonayn waxaa la og yahay inaan cid dibma dooranayn markaa intii laga sii gaadhsiin karaba waa laga gaadhsiinayaa mustaqbalka ummaddeenna iyo carruurtiinna ayaa la rahmayaa qabyaaladii baa dib laynoogu soo noolaynayaa reerihii baa la ysku xoqayaa waxa weeye somalilan halkii laga aasaasay ay ka dhisantay ee lagaga dhawaaqay waa burco waxa weeye waa adhaxda somalilan adhaxdu waxay isku xidhaa xubnaha jidhka qaarka sare iyo qaarka hoose marka burca sidaa loogu tuntay ee burca sidaa la yeelay maxaa inoo agaagaya gobolkan togdheer wuxuu daris leeyahay laba goboloo kaloo waaweyn oo la hagraday oo sool iyo sanaaga gobolkani waa gobolkii isku xidhi jiray saddexdaa gobolba waa gobolkii ganacsiga xoolaha caanka ku ahaa waxaananu filaynaa ilaahay idankii inuu noqon doono xarunta marka shidaalka la soo saaro xarunta laga maamulo ee xarunta ganacsiga shidaalka xarunta laga maamulo inay burca noqon doonto ku abshira burca sidaa waxaa ulayn mayso deegaammada ku xeerani saa ahaan maayaan waxa weeye maanta qadiyadeennii gooniisutaagga aynu ixtiraafka adduunka ka raadinaynay waa la soo ooday qol yaroo madow oo wasaaradda arrimaha dibadda ku yaalla ayaa lagu faalgareeyey waxaa inoo yimi cahdigii riyaale madaxweynayaashii afrika ninka ugu miisaanka badnaa kenneth kaawundaa la odhan jiray zambiyuu ahaa hormood buu ka ahaa ixtiraafkeenna waxaa inoo raacay madaxweynihii hore gaana oo isna tuurta u ritay waxa tuurta u ritay ninkan maanta south africa xukuma ayaa tuurta u ritay halkii baa lagaga soo hadhay halkii ayaa lagaga soo hadhay maanta
meel aynu ku haysanno magac iyo maamuus xidhiirkeennu addisababa Itoobiya lahayn baa soo xidhmay oo waxa la yaalo waxay kaga tala galaan nimankan ayay garan waayeen ihtiraafkii baa dib loo dooni doonaa waanu raadin doonaa halkii baa laga sii ambaqaadi doonaa mucaawino waynu helnaa laakiinse mucaawanada sida loo maamulo waa maqashaano waa aragtaanoo TV-ga ka daawataan looma sinna gobollada lama simo kolba ninkaa wasiirkii halkaa jooga ayaa intaa ishiisu qabanayso ku maamula waxaannu idiin sheegaynaa musuqmaasuqna wuu xadhka goostay aad iyo aad iyo aad wuu xadhka goostay idinkoo biyala oo iskuullala oo caafimaadla ayaa safar walba waxaa baxa 50 wasiir oo hodheella gala wax lala yaabo waxa noqotay alla caafimaad ha siiyo cumrigiisana raajiye madaxweynahoo yar xanuunsado imaaraadka tegey ayaa wasiirradii ka daba tegeen maasalan shirkii golaha wasiirrada hudheel imaaraadka ku yaalla ayaa la qabtoo la kiraystay oo lagu qabtay xaggay adduunka ka dhacdaa war madaxweynuhu hadduu caafimaad u baxay madaxweyne ku-xigeen baa jooga wasiirradii baa jooga war xafiisyadiinna jooga oo dalka u shaqeeya oo culayska ka daaya isagana halkaasaynu maanta maraynaa wasiirro badan baan maanta dalka joogin mid Sweden ku maqan mid Maraykan ku maqan oo waliba inta badan waa socdaalo shakhsi ah ee maaha shakhsiyadaneed intaas safarada lagu gelayaa ceelal bay qodi lahayd MCHDs lahayd iskuuleedis lahayd waxaan leeyahay Somaliland maanta waxay maraysaa halkii ugu liidatay bay maraysaa weligeed halkaa may gaadhin sicir bararkii baa ka waraysaan oo la idiin sheegay oo baankii dhaxaan shaqaynayn innamadu waxay ka cawdaan sariflayaashu iyadoo dawladduna amartay oo tidhi sicir barar xakameeya ayaa nin wasiira oo sita ugu yaraan 1 bilyan oo Somaliland shilina ayaa odhanaya ii soo sarrifa waxa doontaan ku sarrifa waxa doontaan iigu soo sarrifa oo inuu intaa doolaraysto doonaya degdeg haddana waxa lagu eedaynaya waxa la leeyahay sariflayaasha ka dambaysa sariflayaashu waxay leeyihiin war lacagtan aad tirada badan ee baanka ka soo qaadanaysaan ee noo keenaysaan ee nugu qasbaysaan weliba wax walba ku sarrifa war naga daaya war dalkii halkaasuu maraya waxaynu ku badbaadin karnaa oo keliya waa farteenna waxaan sheegayaa halkan ka sheegayaa arabari haddii tolkiin idiin yimid oo yidhi codna siiya waa la arki jiray laakiinse jawaabtu waa miduun doorka raalli ahaada lamar dambiya mooyaane tolnimana waa halkeedii tolnimo waa halkeedii ilma adeerayaalow seediyaalow walaalayaalow doorka raalli ahaada waxa weeye Somaliland waxay ku badbaadi kartaa un maanta iyadoo wadani la doorto kulmiye ku bedel ninba shirbay wuxuu yiri tiin ku bedel waa tacab khasaar tiin ku bedel waa tacab khasaar kulmiye waa maanta xukunka hayo tiin buu noqday waxaynu ka filaynaa meelin tiin kale ku bedela waxba ma inaan kororsan waa tacab khasaarka inaga daaya waa wadani iyo farta kuubsada innagu cidna caayi mayno cidna colaadin mayno waa walaaladeen waa tolkeen la kala tegi maayo cabdiraxmaan oo cali faarax baa habeen dhawato meelu ka hadlaya yidhi war axsaabta kala raaca laakiin saddex axsaabta xaq idinkuma laha iscolaadiya annagu iscolaadiya ma lihin iyagaa dadka yidhaahda soo qasa qoladaa waynama nugu dira oo xafiisyada naga fuula oo jeexjeexa calamadayada oo dhallinyarada xidhxidha innagu taa samayn mayno waxa weeye guushu waa meel
و13 نوفمبر يني وروبا فرتادا ني وروبا فرتادا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سومالي نانولاتو